we are holding today. As you have seen here on the TV and the television and the journalists which are now here, plus the people and the community of representing the Hawiya clan, we are supporting today the announcement and the decision taken by our parliament, which have saved the nation and our people at large. Therefore, I'm here want to forward a message to the international community. I urge the international community not meddling their incompetence, double dealer, and conspiracy among federal states, among our federal states of Galmudug, Hirshabelle, Southwest, and Womoyi Galben, this Puntland and Jubaland. We also welcome the international community for any assistance given to our people and our government in the past and the present time. We also not accept anyone interference into our internal affairs as per your current electoral impasses, mediations. We are now sensing that you are up to our bedrooms. Therefore, we will not accept for any inconvenience interference that leads war, insecurity into our Somali nation. We assure you here that our current government, our Prime Minister, and our beloved President, Muhammad Abdullahi Farmajo, and our beloved Parliament can govern this nation with and without you. Therefore, we want you to step aside for our internal affairs. Intaas waxaan u jeedinayaa international community-ga. Waxaan u malaynayaa Soomaaliya haddaan ku fasirno waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka ah oo baryahanba iskaga dabqaadaysay dabaldhiirnimo macnaheeda kula jira kaajiranimo munaafiqnimo iyo incompetence oo wax ay ku qabanayaan intaba aan jirin ka dhex waday dowladda dhexe ee Soomaaliya oo ay la socdaan saddexda maamul goboleed, gobolka Banaadir iyo gobolada Waqooyi Galbeed iyo dhinaca kaleeto oo ahaa Jubaland iyo Puntland. taas waxay koos garaysay in ay aan u aragin ama aan dareennay inay beesha caalamka ay ku jirto ilaa iyo qolka jiifka ay dowladda Soomaaliya ay ku jirto. marka cidna ka aqbali mayno inuu qolka iyaga gudada aan hurudno oo qof noogu soo galo oo nagu maamulo. sidaas darteed waxaan u sheegaynaa wax allaale wixii mucaawina ama gacana oo ay ka geysteen inta dowladda Soomaaliya dagaaladii ilaa ay hadda waa ku mahadsan yihiin. laakiin waxaan idin sheegaynaa inaanan raalli ka noqonin marnaba in faragelin shisheeye oo dana khaasa ay ka wataan iyo dad u adeegayo inaan ka aqbalayn ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed ay hogaaminayaan iyo madaxweyne Farmaajo iyo Prime Minister Roble iyo baarlamaanka. sidaas darteed waxaan leenahay walaalayaal dhinaca u istaaga. waxaan idin sheegaynaa inaan ismaamuli karno adinkoo nala jooga iyo adinkoo naga maqan labadaba waa ismaamuli karnaa. sidaas darteed naga daaya dhibaatada aad nagu wadaan oo arrinta gudaha. intaasaan aniga kusoo gabagabaynayaa waana mahadsantihiin.